jaamacadda caalamiga ee Adel Medical University oo maanta u qabatay xafladda qalinjabintii koobaad ee ka baxda jaamacaddaasi taniyo intii uu aasaasay Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi Xeeldheere caafimaad oo gobolka Awdal si weyn isagoo kala soo dabaashay marxaladii kala duwanaa ee aasaaskii waddanka iyo horumarka dalka. xafladda ardaydu ay ku qalinjabinaysay maanta ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland, mas'uuliyiin iyo madax ka tirsan dowladda Somaliland oo ay ka mid yihiin dhismaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Somaliland, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirro kale oo ku weelinayay kulankaasi iyo madax iyo dhaqan iyo guud ahaanba marti sharaf kale ardayda qalinjabinaysa oo dhammaantoodba u soo boqolay saaka inay farxadda dabaaldegga maalinta farxaddooda ay kala qayb galaan. ugu horreynba goobtaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga boodhka jaamacadda Adel Medical University Professor Xasan Halas, Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi gudoomiyaha jaamacadda Adel Medical University oo isagoo halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii ardaydan maanta qalinjabinaysa ay barteen iyo sida bulshada ay ugu adeegi karaan maanta. anoo ku hadlaya magaca muxuu ahaa boodhka jaamacaddan muxuu ahaa caafimaadka ee Adel, waxaan leeyahay soo dhowaada. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan qalinjabinta ah ee boggii ugu horreeyey baashkii ugu horreeyey ee caafimaadku ka qalinjabinayo jaamacadda Adel Medical University. waa difcaddii koowaad ee ka qalinjabisa ayaan idhi. waxaa la aasaasay 2017kii baahi jirta awgeed. jaamacaddu waxay ka kooban tahay 7 kulliyadood oo 4 ka midihii kuwa maanta qalinjabinaya ay yihiin, oo tootalka ka qalinjabinayana ay yihiin 82 arday. waxaan ardayda ugu bishaaraynaya shantii u sarraysay in ay bisha January 1 ay tegi doonaan hadduu eebba yidhaahdo Suudaan iyagoo takhasusyo kala gaara soo samaysan. waxaan ku codsanayaa ardayda dhammaysatay 4 kulliyadood ee sheegay inay min fadlag ay sala joogsadaan. anigoo tixi raacaya warqaddii ka soo baxday diiwaanhayaha guud ama rajistarka jaamacadda Adel Medical University iyo guddida hogaaminta jaamacaddaba in ay 82 qof ee hor joogay ay mutaysteen maanta laga bilaabo oo aqoonsatay Adel Medical University in ay yihiin dad ku shaqayn kara ama ku shaqaysan kara xirfadii ay soo barteen. intaa ka dambeeyayna marti sharafkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda madaxda jaamacadaha bariga Afrika oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay qalinjabinta ardaydana ku bogaadiyay inay meel fiican marayaan. Not important Anto. So you the graduates, you are going to be medical doctors, you will be assisting the families, the brothers and all everybody. This university is very important because it's bordering Ethiopia, Djibouti as well as Somaliland. kuwii dalka ka taliya noqda, kuwii daweeya noqda. waxaa la yidhahdaa koro koboc insha Allah koro kobca. jaamacadda iyo macallimiinta waalidiintii ku soo tabcay iyo ardaydaba waxa la yiraahdaa baliyo. intii farxadani waxayna ilowsiinaysaa dhaxantii iyo dhafarkii habeenadiina soo maray, tacabkii iyo daalkiina soo gaadhay. agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare, wasiirka xidhiidhka golayaasha, wasiirka wasaaradda caafimaadka. ardayda maanta waxaan leenahay hambaliyo ilaahay ha ka dhigo cilmiga aad barateen mid aakhiriya adduuniya idin anfaca. waxaan leeyahay cilmiga aad barateen waa inuu wax ka bedelaa sidaad wax u aragtaan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi. run ahaantiina waxay tilmaamaysaa in qofka bini'aadamka ahi markuu doono inuu ummadiisa wax taro halka uu gaari karo ayay tilmaamaysaa. waan u barakeynaynaa. waxaan ka codsanayaa dhammaan qalinjabiyaasha inay dhaqankiisa iyo dadaalkiisa iyo aragtida uu keenay inuu isagoo hal qof ah uu isbedel keeni karo inay ku daydaan. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada, madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici
ayaa iyaguna xafladdaasi ardayda maanta kula dabaaldegay iyagoo si weyn ugu mahad celiyey Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi xeeldheere caafimaad. waxaan ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Jaamac Hadi doctorka ballanqaad buu noo sameeyay wuxuu yiri dadka aan wax barayo waxaan wax u barayaa inay bani aadamka daweeyaan qof aan qof bani aadana ku aamini karo ayuunba ay dhaafi buush hadoo fiirso waxaan uga mahadnaqaynaa Cabdiraxmaan ballanqaadkiisa xafladii qalin jabintii koowaad ee jaamacadda Adal waana ku hambalyeynaa jaamacadda Adal dadaalka weyn ee uu gashay gudoomiyaha Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha boorka Xasan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waa maalintii arooska ardayda halka ka qalin jabinaysa waxa la marka hore hambalyo wallahi cilmiga la barto qofku inuu naftiisu ku anfacana loo baahnay waxa laga baahan inuu ummadda kale ku anfacdaan markii xafladdu ay soo gabagabowday ayaa jaamacadda Adal Medical University International iyo gudoomiyaasha jaamacadaha Geeska Afrika waxa ay kala saxeexdeen heshiis ay dhinaca waxbarashada ku wadaagayaan oo ay ku kala duugeen mas'uul ka socday jaamacadaha Geeska Afrika iyo xeeldheere caafimaad Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi saxiix waxbarasho oo ardaydu ay kaga faa'iideysan doonaan guud ahaanba jaamacadaha Geeska Afrika Adal Medical University ka soo baxday ay ka gali karaan si ay u sii wataan barashada xeeldheeranimada caafimaadka. وهوري أحمد هوري TV عالمي هون كيبل TV مقالة بورمي حرمت قبل كهوضل